بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومقالدني aanu marmarka qaar idin soo gudbin jiray maantana waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo insha Allah ma badinayo 5 daqiiqo marka yaray maahan maka badin doono maanta waxaan ka hadlaynaa hadii Ilaahay yiraahdo Ramadaan waa lagu jiraa alxamdulillah Ilaahay naga aqbala amaasheena annaga maanta waana jawi roobaad roob baan oo daaya dareeni roobinahay marka muuqaalkan duubaya yani waa laga yaabaa mar inaan mar kadib soo geliyo san xilliga ay sheegay ahayn marka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo hadii Ilaahay yiraahdo arrin waayadan soo badatay gaar ahaan waddankeena Soomaaliya iyo Somaliland waa ka qaadaya xogaasi maadaama walaaleen ay leeyihiin waa go'nay Somaliland ba iyo gobolada kale ee Soomaaliya ka dhacaysay arrintaas oo ah ilmaha yaryar ee dhashay la tuurayo runtii waa arrin waddanka amoodin xogaa ku soo badanayso meelo badan ka dhacayso lagana yaabo xogta ah inay aad u yar tahay oo yani waxa qarsoon ay ka badan tahay mar walba arrintaas walaalayaal baan rabaa inaan wax yar ka iraahdo hadii Ilaahay yiraahdo waa marka koobaad inta badan ilmaha la tuurayo wuxuu u badan yahay ilmaha aan sida sharciga ah ku dhalan ama ku calool gelin inta badan way adag tahay ilmo hooyadiis iyo aabihiis caadi isku guursadeen caadi maaragtay si sharciga ku calool galay in la tuuro way yar tahay ma la jirtaa u maleynaya ama waxa oran karaa ma jirtaba midda koobaad oo arrintaas keenaysa waxa weeye horta mana oran karo guurka uu adkaado Soomaaliya guurku aad buu u fudud yahay laakiin dhowr sababood baan u maleynayaa inay keenayso arrintaas midda koobaad waxa weeye gabadha marka hore waxay sameynaysaa in ay xiriir samayso sharciyan aan banaanayn ama ay saaxiib la noqoto wiilal ajnabi ka dabcan markii saaxiib la noqoto waxay sameynaysaa gabadhii qaarkood waxa laga yaabaa in la meher xado markii la meher xado gabadhii uu ku soo baxo ninkii inuu inkiro oo diido oo yiraahdo naana ma dhal ilmahaas iga tag marka taas waxay keenaysaa gabadhii waalidkii intay u tagtana ma oran karto uur baa leeyahay sharci nin hebel uu iga dhalay uuna igu inkiray may u sheegi karto waalidkii way ka baqaysaa gabdhahan xoogaa يعني xishoodkii baa moodaa inuu ama baqdintii baa intay ku badatay inay saas u sheegto way dhib badan tahay midda labaad oo keeni mid waa taas midda labaad oo maleynay inay keeni karto waxay tahay gabdho badan ay ku keeni karto wax la'aanta jirta darteed ragga qaarkood oo ka faa'iideysanaya duruufaha ay dumarku ku jiraan in ay markaasi samayso galmada sharci darrada ah ku dhisan markaas ama inuu u ballan qaado mesela shaqo u ballan qaado ama u ballan qaado lacag ama khaasatan arrintaasna waxa u badan ragga qurbaha ka yimaada waa u badan baa u maleynaya ama kuwa xafiisyada dawladda fadhiya baa u badan say u badan tahay arrintaas oo runtii ayana ah arrinta keeni karta inay gabadhu uur bilaa sharciga qaado marka dhowr talaan soo jeedinaya talada koobaad waxay ku socotaa waalidiinta dhalay gabdhahaas waalidiinta galay gabdhahaas waxaa laga rabaa kow in marka koowaad horta gabdhihiina ay ka warqabtaan waa inaa ogaataa gabadhaadu ciday xiriirka la leedahay yay xiriir la leedahay gabadhaadu iskuulka markay aado yay saaxiib la tahay gabdhaha ay saaxiibka la tahay inaa ogaatid haddii ay jirto wiilal ay saaxiib la tahay xataa ama ay sheeko wadaagyihiin inaa ogaatid Soomaalida garan talada labaad waxaan u jeedinayaa gabdhaha taladii hore aan wax ku daree haddii waalidiintu ay ogaadaan cidda ay saaxiib ka leeyihiin ama cidda ay la socoto gabadhooda haddii ay wili la sheekaysato fadlan waalid ha ka celin gabadhaada maadaama ay qaangaar tahay u sheeg gabadhaada saaxiib la noqo guriga ha keensato dadka ay wiilasha ay saaxiib la tahay ama la sheekaysato baro maxay yihiin waalidiintooda xataa wiilashaas baro wiilasha xataa la saaxiib oo mararka qaar hadaa gabadhaadi weydahada oo gabadhii hayay aday kula socotay xagee ku dambeysay waayada waxyaabaha dhacay waa arkayseen kufsiga iyo waxyaabaha soo batay ha ka ceerinin gabadha guriga maxay yeelay gabadha hadaa u diidid inay kula sheekaysato gurigaaga
wiilkii ama qofka ay saaxiibka la ahayd hadda waxay keenaysaa in ninkaas qofkaasna aad fursad siisid oo gabadha inuu meel cidlaa la tago aad fursad u siisid ayadiina aad kalsooni darro ku abuurtid oo ay kaa qariso meeshii markaasi ay la aadaysay. midda labaad waxay ku socotaa gabdhaha gabaray mas-uuliyadda koowaad u horeysa ee saaran naftaada aday ku saaran tahay. waa inaad naftaada ilaalisaa, mustaqbalkaaga ilaalisaa, sharaftaada ilaalisaa, ka fakartaa mustaqbalkaaga dambe. hal arrin ah ama hal khalad oo aad samaysid ayaad ku baabi'inaysaa mustaqbalkaagii dhammaa 40 sano ama 50 sano ilaahay hadduu cimriga siiyo aan noolaan lahayn. ka fakar cidda aad la socotid, ka fakar qofka aad saaxiibka la noqonaysid. haddii ilaahay kuma tusee dhibaato ay kusoo wajahdo ogsoonow sharafta ugu weyn ee aad haysatid iyo qiimaha ugu weyn ee aad leedahay ee gabar haddaad tahay ay haysatid waa gabarnimadaada. waa inaad ka fakartaa inaysan been kugu dhaafin. haddii laga yaabo in ilaahay dhibaatadaas kuguma keenee inaad wax ku heshid bedel ah marna ha samaynin. baahi u dhimo qofkii isku daya inuu ku dhaafsado inuu dhaafsado gabarnimadaada inuu dhaafsado quud xuna ama shaqo xuna uu ku siinayo rabo inuu gabarnimadaada ku baabi'iyo baxdhe diid. raggana waxaan leeyahay talada aan siinay waxay tahay ogsoonow gabadha aad xudaynaysid ama aad ilmaha ku inkiraysid haddii aad waxa weeye aad meher xaday ama qarsatay waa walaashaa oo kale, waa hooyadaa oo kale, waa habaryartaa oo kale, waa eedadaa oo kale. ma jeceshahay eedadaa iyo walaashaa iyo hooyadaa xumaantaas oo kale in lagu sameeyo? dabcan ma jecli. ka fikir marka gabadha aad xudaynaysid intaasay wiil u tahay, wiilkaas ciilka iyo carada uu geli karo hay ka fikir. marka muuqaalka ugu dheeraaday intaas ku soo koobayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.